dil arxan darro ah ayaa wiil iyo abtigiis waxaa loogu geystay miyiga bariga gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. Soo dhawaada saaxiibayaal, xogta warbixintan ayaan halkan doonaya inaan kula wadaago. Haddii uu muuqaalka idin soo gaarana si share gareeyo oo saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidiina noogu reeba. Halka dilkan uu ka dhacay iyo cidda loo geystay iyo cidda geysatay halka ay aaday ayaan halkan doonaya saaxiibayaal markale idin kula wadaagay. Wararka ka imaanaya bariga gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada miyiga waxa ay sheegayaan in saq dhexe ee xalay waliba xilli dambe abaaro ay ku beegneed saacadu labadii habeenimo ama 8 saac habeenimo ayaana la tilmaamay in dilkan uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Aboorey iyo sidoo kale Cadawilif oo markaasi kamid ah deegaanada hoostaga magaalada Cadakibir oo iyadana kamid ah kuwa hoostaga degmada Cadaado oo qiyaasii 70 kilomitir dhinaca bari ka xigta degmadaasi Cadaado. waxaana la warinayaa in dabley hubaysan ay dilkan geysteen. wiilkan iyo sidoo kale abtigiis ayaa ku sugnaa gurigooda. dableydan hubaysan ayaana la tilmaamay in deegaan ahaan ay ka soo jeedaan deegaanka Xiindheere ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. dableyda ayaa markii ay dilka geysteen kadib goobta isaga baxsaday waxaana la tilmaamay in deegaankaasi Xiindheere dhinaciisa ay u baxeen dhowr xabadood oo ay ku dhufteen. wiilkan iyo abtigiisa ayaa la sheegay in ugu dambeyn ay u geeriyoodeen oo ay goobyaal noqdeen. waxaana sidoo kale jira in tiro sidaasi oo kale oo shakhsiyaad ah dilal loogu geystay oo waliba aanooyin qabiil ku salaysan. dadkan isku qoyska ah ayaa dilalkooda inta badan ku soo noqnoqday deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. halka uu dilka ka dhacayna waxaa tagay ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan ciidamada daraawiishta iyaga oo halkaas ka sameeyay howlgal kooban oo wax natiijo ah aysan ka gaarin laakiin la sheegay inay ku daba jiraan raggii dilalkaasi ka dambeeyay. aanooyinka qabiil iyo dhacdooyinka foosha xun ee ay isku geysanayaan beelaha deegaanada dowlad goboleedkaas ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa. habeen ka hor ama habeenna ka hor deegaan hoostaga Cadaado ayaa dilal loogu geystay Allah u naxariistee dad isku qoys ahaa oo waliba hooyo wada dhashay ama isku aabo iyo isku hooyo ah kuwaasi oo iyagana halka lagu aasay oo cidii dilalkaasi u geysatayna aanan la ogeyn. dagaaladii tooska ahaa ee ay beeluhu isaga hortagi jireen hadda waxa ay ku soo koobmeen isgaadgaadid oo qoysaska inta badan guryahooda lagu weeraro oo waliba looga dilo dadka haldoorada ah ee dhalinyarada ah ee mustaqbalka ifaya leh. ma jirto qorshe cad oo maamulka Galmudug uu kaga hortagayo falalka noocani oo kala ah iyo dhibaatooyinka sidani oo kala ah. kaliya ma ahan Galmudug, sidoo kale Galgaduud iyo Mudug waxa sidoo kale jira deegaano kale oo ka tirsan Hirshabelle oo iyagana falal noocani oo kala ay ka dhaceen. maalinimadii shalay ayaa ugu dambeysay oo gabar hooyadeed iyo labadeeda walaal inta la dilay iyadana naxdin darteed u geeriyootay. haddaba Soomaaliya madaxda ka talisa yay u taliyaan yayse doonayaan inay u taliyaan haddii beelihii ay markaasi mas'uulka ka ahaayeen ama ummadii Soomaaliyeed sidan ay isku dhameynayaan sidoo kalena aanay jirin cid ka hortagta iyo halka ay ku dagaalamayaan ciidan la geeyo oo inta badan ka hortaga falalka noocani oo kala ah. xalse ma loo waayay heshiiska beelaha qaar la dhex dhigo ugu dambeynna markaasi ay heshiisyadaas dib u burburaan. kaliya ma ahan Hirshabelle iyo Galmudug oo deegaanada badan inta badan ka tirsan dowlad goboleedyada kale ee dalka marka laga reebo Puntland waxaa jira ama niraadi Somaliland waxaa jira beelo Soomaaliyeed oo isku dhameynaya. saaka dagaal soo bilowday salaadii subax kadib isla markaana soo gaaray halka saac ee maalinimo ayaa ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasi oo ay isku geysanayaan laba beelood oo halkaas iyagana wada dega iskuna haysta arrimo maamul iyo dhul iyo wax kale oo halkaasi ka jira. wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal umurahan iyo idil barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa.